ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo howlgalla ammaanka lagu xaqiijinayo ka sameeyay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramay in halkaas ku soo qabqabteen dad la xiriirinayo inay ammaanka caqabad ku ahaayeen sida uu ku waramayo wariyahayaga Nuur Saciid Ciliil howlgal ay ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ka fuliyeen degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxay ku soo qabteen hub iyo dad la tuhmayo inay ka tirsan yihiin kooxda argagixisada ee Al-Shabaab kuwaas oo lagu soo eedeeyay in hub ay ku duugayeen hoyga ay ku noolaayeen oo ku yaala degmada Yakshiid. afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Umar Xalane ayaa warfideenada ugu warbixiyay howlgalkan. ummad muslimiina in la dhibaateeyay hoobiyaha inta bahalka baasuukaha inta leeg la dhaco ee lagu dhibaateeyay la rabay waad badbaadideen Allah idinka ajir siiyaan ayagana leenahay sidoo kale tani markii ciidanka ammaanka gobolka la hoos keenay wad arkaydeen qaabka loo fashilinayay cadawga oo gacmaha looga qabanayay oo ammaanku ay shaqo badan u hayeen oo iskula shaqaynayeen oo shacabku fariinta keenayeen oo heedaha ammaankuna waajibkooda qaran gudanayeen oo darkeedeen maalmihii la soo dhaafay qaabka aan habeeniyo maalin uga dul qudbaynayo cadow la rabay ummadda inuu gumaado oo ciidanku